ujeedada Israa'iil waxay ahayd inay ku guulaysato inay burburiso oo daciifiso Xisbullah iyadoona awood kasta xooggan iskugu geysay balse waxay ku guulaysatay kaliya inay disho hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah iyo saraakiil kale tanise kama dhigan Xisbullah inay burburaan kadib beegsiyadii Israa'iil hoggaanka Xisbullah waxay Israa'iil dareentay inay awoodeedii soo laabatay balse waxaa hamigii gumaystaha burburiyay dowladda Iiraan asaasidii Israa'iil dagaaladii dhexmaray wadamada Carabta marka laga soo bilaabo sanadkii 1967 waxay Israa'iil u suurageliyeen inay ku qabsato dhul balaaran oo ay ka mid yihiin dhulka Falastiin saxaraha Siinay ee Masar iyo buuraha Golan ee Suuriya 7 Oktoobar 2023 duulaankii wax iska caabinta ee duufaanta Al-Aqsa ku qaadeen gumaystaha ayaa noqotay dhacdo ka yaabisay dunida waxayna meesha ka saartay fikirka ay dad badan ka haysteen gumaystaha kaasoo ahaa in Israa'iil tahay awood aan la jibin karin awooddaas oo ku dhisneed kaliya daadinta dhiigga Falastiiniyiinta weeraradii wax iska caabinta waxay noqdeen mid su'aal gelisay mustaqbalka iyo jiritaanka Israa'iil xilli ay ku hanweyneed inay hogaamiso bariga dhexe oo dhan